إلا 5 سنة روب معنا هني حير يرد دعمو إلا 5 سنة 6 سنة روب للشباب وحوله محودة محرق الله غفره كمان 5 سنة كده وحرنت قشن كاسان لو غرايا marka midda hadda qoysku uu ku tirsan yahayna waa mar hel mar waay markii wax la helana waa la karsadaa markii wax la waayana waa la iska qatamaayo hadana wixii kale to Ilaahay keena la soo faqadarada maalin walba ilmaha way u dhintaan hooyada way u dhimataa had dhaafna waay abaarta maadaama ay 5 sano iyo wax ka badan ay fooda la sii galayso hadda iyo oo beeraley xoolo dhaqataa maxay dhaqaalaha ugu fiican wuxuu naga soo galaa beeraha beerahina waa abaar maxay haytay halkeen ilaahdo halkaas uu dhaqaaluhu naga soo galaa wax weeyaan. We are now in the middle of a crisis where we have 5 consecutive delayed rain seasons. 1 million people have been displaced and joined the IDP camps in the town. It goes beyond their capabilities and capacities to respond. marka dadka asaga hooy male biyo male musqul male wax la cuno male nafaqa darada ay cagabararka wadiyaabaysa. There was an increase of children getting malnourished, a number of under 5 children dying, and increase of IDPs. SOMREP is a consortium of now 8 organizations that came together for the long-term resilience building activities. SOMREP has been implementing various resilience programming, building the capacities of the communities, and also communities were being set up for infrastructures like water systems, construction of permanent canals. On top of that, there has been helped communities on VSLA. VSLA is Village Saving Loan Association. So those are some of the key activities under the SOMREP program. When the drought came over the last 4 to 5 years, the crisis modifier component has been added into the program. Crisis modifier, it is a contingency fund that helps SOMREP to help communities maintain their resilience again that we have been building over the years. It is first response for 3 months in the middle of a crisis, and it is a form of emergency cash transfer, animal health, and water tracking. Communities have already identified what they want to do. For example, building a gabion to a degraded land, feeder roads to their villages for better access, protecting their natural indigenous trees, restore their natural assets like this valley here, while they're getting cash, as well as rehabilitating the natural asset that they depend on. Each person was receiving $84 per month to do bush clearing, irrigating lands. In people getting cash in returns, they also impacting the communities to have good canals in their farms, new lands for the farming. Those are the key impacts. In terms of the unconditional cash transfer, it has helped all people, female-headed households, those who are very ill, children with malnutrition, women that may be pregnant and lactating. كل بركة iyo hawl iyo dhibaato iyo baadidoon iyo cidhiidhi dee wax badan baa ku dhici lahaa. oo yumi $4 ah ay qaadanayeen cash bag 3 bilood baa laga shaqeeyay oo qartadan ah. waxna beertan ku maalgashanay oo kanaalkan ku dhisanay ku hagaagsanay carruurtan waxay cunaan ugu gatay wixii deynaha lagu lahaa iskaga bixiyay. horta qardeed waxaan qabanay shaqada qardeed dhulkaan waa dhulka la qardeeyay beertan waa beerta la qardeeyay dadka markaa saas wax u qabsadeen maadaama qardeedii faa'iido keento. xaq santuuqa lacagta iyo kaydka amaahda ayay naga saacidaysay waa ku faa'iidnay waan ku fiicnayn hay'adda lafteeda abaarta markay gashay way naga gashay. 3 bilood marka oo aan qaadanay ilmihiiya ku raystay waxaa ku raystay duunyada ku raysatay oo waxa weeye wala dhaqalisiya wax la siiyaaba wax laga siinayay ilmihii iskuulka ku raystay oo iskuulka wax lagu baraayo oo iskuulka gaari lahaaba waxa weeye wax loo karinayay marka 3 bilood oo aan ka qaadanaynay dad soo kaagacaaneen marka qof xoolihii wax u siiyay iyo dadkii u qaybiyay qof mid waxbarashadii galiyay dee aad iyo aad baa lagu reeyay waxtar weyn bay dadka u tartay waqtiga markii loo eego. marka beerihii daadku naga qaadayay waqtiyada hore sanadadii hore haayeen adigu iyo beer daadkiina uu noo qaybiyay dadar wad garanaysa xoolihii waxba ka soo dhacay way helayaan hoostiisa way xaabi karayaan dadkana har bay ka heleen maxay hay toolo kale dirtu wixii marka kayntu wax ka soo daataan de xooluhu may gali kareen ay bay ahayd
bahalkii oo kale aan ka raysano xoolaha bahalka naga cuni jiray de markaa waxaan ku wax weyn bay tartay wallahi dadkii oo saaminay magaaladii oo dhaqdhaqaaqday dadkii xoogoodii ku shaqaystay oo ku xisaabtameen dad shaqaysanayay yihiin iska jiifjiifay de markaa wax weyn bay ka qabatay. Crisis Border Fire is a window of hope. People utilize their positive coping mechanisms. They can make a decision. Their purchasing power has been enhanced. That helps their family to withstand the shocks of the droughts.